بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد odayaasha waxgaradka beesha awiye iyo dhammaan intii joogta muxuu ahay munaasabadan mudan iyo marweyn assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib shirkan jaraa'id waxa weeye aasaaskiisa waa cabasho waxaan rabnaa inaan keliya uun gudbinno shalayto waxaan u diyaar garowno safar aan rabnay inaan ku gaarno Hargeysa ama dowladda Somaliland arrintaasi marka noomay suuro gelin sababti marka aysan u suuro gelin waxaan rabnaa inaan cadeyno keliya shalayto markaan diyaar garownay oo safarka u diyaar garownay waxaa warar naga soo gaareen aan xaqiiqdooda aanan si fiican u helin madaarka Hargeysa oo la yiri odayaashaasi soo degi karaan halkan arrintaasi waa xaqiiqi weynay markii dambe waxaan go'aansanay inaan iska baxno aragnana xaqiiqda marka xagga markaan tagno ay noo cadaato waxa aan ka jira warkaas la sheego aeroboorkaan aan galnay Muqdisho aeroboorka Muqdisho markaan galnayna waxaa noo cadaatay in xagga amar laga soo siiyay diyaaradda aan raaci rabnay maamulkeedii oo la odayaashaasi ma soo qaadi kartiin mana imaan karaan Hargeysa taasaan noo xaqiiqadoodii marka arrintaasi waxaan runtii waa qaado weynay waxay nala noqotay wax aanan maaragtay filaynin oo annaga aan la yaabnay maxaa yeelay Hargeysa annaga mar koobaad iyo mar labaad iyo ka badanba waa tagnay waxaan u tagi jirnay arrimo iska ijtimaaci oo arrimo dhaqan ah nagama xirayn magaaladu meelna la ka ixtiraamo oo la ka jecel yahay oo la ku soo dhaweeyo si haybad leh ayay ahayd ilaa haddana waa aaminsanahay inay sida tahay marka isbedelkaas waa fahmi weyn waxaan rabnaa marka wax walba imaan kara wixii annaga aan u soconay marka inaan cadeyno haddii soo loo turjumay siday ahaayeen maahana si kale haddii turjumay waxaan rabaa sidii inaan cadeyno aan u soconay annaga waxaan u soconay laba arrimood oo keliya oo labaduba dhaqan ay ku saabsan yihiin waxaan u soconay niman dhalinyaro ah oo meesha ku xirxiran oo 20 sano ku xiran hadda 13 sano lagu xukumay dibadeedna 7 ku darsaday oo meesha iska jooga oo aan la garanayn waxay u xiran yihiin nimankaas arrimahooda maamulka hadda Somaliland madaxweynaha iyo maamulkiisa waa ugu tagnay rajana loo muujiyay laakiin haddana ma suuro gelin in la siiyo la soo daayo kii ka horeeyay oo maaragtay Seelaanyana asagna sidoo kale waa ugu tagnay ayadan rajana loo muujiyay mar walba ma suuro gelin marka barnaamijkaas oo noo qabiy ahay oo ku saabsan nimankaas maxaabiista in la kala xaajoodo kaliya qodob ay aheeday qodobka labaadna wuxuu ahaa nin meesha ku dhintay oo nin ku dilay xabsiga oo magtiisa looga heshiiyay xagga oo laga leeyahay isla Hargeysa ninkii magtiisana waa la wado odayaasha ayay wadeen odayaasha waday marka labadaas option oo kaliya oo iska dhaqana oo waxa maalin walba dadka ku soo noqnoqdaa ayaan u soconay dadka meesha joogaana haddii saad ogtihiinba waa dadku was dhex yaala sida Hargeysa loo jooga xamar loo jooga xamar sida loo jooga Hargeysa loo jooga marka annaga odayaasha dadkaas ayaan nahay waxaan u soconana waxay ahaan dhaqankii iska caadiga ahay oo markii horeba aan ugu tagi jirnay meesha ama u tagi jirnay marka wax siyaasada iyo wax kale oo borogaraama iyo wax dhibaata oo islaanahay waa la idinku jooji karaa ma aynaan wadan marka arrintaas waxay noo noqotay arrin lama filaan ah sidaas darteed taasaan waxaan ka nahay cabasho waxa kale oo annaga aaminsanahay Hargeysa waa meel annaga leenahay waa meel aan jecelnahay waa meel dadkeeda aan maaragtay aad isugu fiicannahay marka ayadana waa garaweyn waxa aan ku mutaysanay in la celsho oo la yiraahdo ma imaan kartiin arrin aad noogu weyn noqotay ilaa haddana ma inaan fahmin sababtan uu ku diiday marka waxaan hadda codsanaynaa oo warkeena aan rabnaa inaan ku cadeyno horto dhibtina loo geystay
waxaan rabnaa dowladda Somaliland iyo maamulka Somaliland inay apologize naga siiyaan oo nala ka raali geliyo waxna qabta ilaa ma ahayn midda labaadna waxaan rabnaa in naloo ogolaado masaalixda aan u soconay oo marka hore caamka iska ahadoon annaga u soconay waxaan rabnaa in naloo ogolaado naloo fududeeyo labadaas arrimoodaan rabnaa inaan maaragtay muxuu ahay warkeena ku cadayno shirkeenu ku saabsan yahay qofna caayimayno qofna dhaawici mayno dadku waa dadkeeni maamulku waa midaan maaragtay saaxiib nahay wax badan inaan dhex mareen oon asagana aaminsanayno se wax naga haleeyihiin colaad annaga teenaana aanay ku jirin marka haddii wax kale la faafiyo annagu aanan u socon ama aan nugu jirin waxaan rabnaa waxaan u socon inaan caddayno runtina waa ku rajo badannahay inaan maaragtay annaga marna aan meeshaas xumaani aanay nooga imaan karin noogana imaan doonin haddii alla idmo marka mowqifka annaga aan u qabno shirkan waa intaasoo keliya inaan caddayno waxaan rabnay codsanana in naloo fududeeyo nala kala xaal mariyo nala ka maaragtay muxuu ahay obolojas laga bixiyo wixii shal nala ku sameeyey oo ahay in la hakiyo safarka in la hakiyo taasna ayadana waa ka xunnahay marka intaas rabna inaan caddayno ma rabo inaan intaa dhaafsiyo hada billahi tawfiiq marka waa mahadsantihiin mar koobaad iyo mar labaad iyo ka badan